أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. dhammaan akhyaarta ay la socotahay aniga oo kulligiin ba idin salaamaya ayaan salaan qiimo iyo qaayo badan ka bacdi waxa aan rajaynayaa in aad ila aragtaan sida aan rabo in aan u dhexdhexaadiyo majmacul culamaa almuslimiin fi Soomaal iyo baarlamaanka ama dawladda iyaga oo la isku haysto sida usbuucan aad la socoteen baraha social media waxa aad ugu socday in ay culumadii wadanku ay dhaar iyo goodi iyo hanjabaad ay ku marayaan in ay dawladda weerari doonaan in ay jihaadayaan in ay baarlamaanka burburinayaan in ay xagga baabi'inayaan oo maxaa yeelay waxa ay leeyihiin waxa lagu tuntay shariicada islaamka waxa laga tagay kitaabka ilaahay waxa la burburiyay islaamkii waxa lagu xadgudbay dhaqankii Soomaalida intaas oo dhibaato ay keenayaan waxa ay leeyihiin waxa ay sheekadu ku noqonaysaa tii 1974 ama 3 mid ay ahaataba ahayd mar walba aanu taagannahay culummo ayaa horay loo toogtay marka haatan aan arinta iyada gudagalo sida aad maqlayseen afhayeenka gudoomiye ku-xigeenka kulli waxa ay majmacul culamaa almuslimiin waxa ay dhaar culus iyo goodi ku mareen in haddii aan laga noqonin qodobka sheegaya in gabadhu ay ku qaangaarto 18 oo 18 ka hor aan markaa lagu guursan karaynin aynan ahayn sharciga la diiwaan gelinayo haddii lagu guursado 15 iyo ka yar meelahaas lagu guursado sharci halkaas ayay ka qayliyeen waxa ay kaloo ay ka qayliyeen qodobka in haddii nin uu gabadhiisa yarow dhalay ama wiilkiisa yarow dhalay uu kufsado oo fuulo oo maxay tahay uu xoogo markaas waa ilmo saqiira ama ilaahu 2 bilood jiro ama bil jiro ama uu 20 jiro uu kufsaday kaas waa laga qaadayaa ilmaha ayay dawladdu sharciga lagu soo qoray baarlamaanka taasna waxay dhaheen waa mid qaanuunka diidan waa sharci gaalana loo kaga keenay sharci naqoseeyaba ma ahan ayay soo istaageen bal jawaabtu maxay tahay marka jawaabtu waxa ay tahay aan ka fiirino sida allaha awoodda lihi uu ku cadaynayo quraankiisa oo waa sida allah uu ku sheegayo arinta qaangaarka waxa ay tahay sida tan suuradda an-nisaa aayadda 6 oo allah awoodda lihi waxa uu ku leeyahay wabtalul yataama hatta idha balagu nikaha fa in aanastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum macnaheedu waxa ay tahay imtixaan oo tijaabo ku wada agoonta yaryar hatta idha balagu nikaha ila ay ka gaaraan heer ay ka guurgalkan noqdaan oo ay gabadhu guurgalkan noqoto oo wiilku reer dhaqan karo fa in aanastum minhum rushdan haddii aad ku aragtaan oo ka hubsataan oo ka aragtaan inay hanuunsan yihiin oo dad sidii la rabay ku hanuunsan dhaqaalaha iyo horumarka qoyska iyo nidaamka qoyska iyo xuquuqda qoyska oo dhan kuwa garanaya haddii ay yihiin oo lacagta qasaarinaynin fadfa'u ilayhim amwaalahum xoolahooda faraha ka saara oo iska siiya intaas baa la yiri marka aayaddu ha aata agoon ha ka hadlayso xoolo la siinayo iyo ka hadasho laakiin qodobka aan uga taleenay meesha waxay tahay hatta idha balagu nikaha fa in aanastum minhum rushdan marka waxa weeyaan haddii aad ilaa ay ka gaaraan heerka baaliqnimada heerka qaangaarnimada heerka reer dhaqashada waa nikaaxa si caadiya guur ay ka gaaraan marka kadib haddii aad ku aragtaan in ay qofkaas hanuunsamay oo wixiisa la wareegi karo ku wareejiya
haddii aanse laga helinin hadde weli ha loo sii hayo ilaa laga garto ee laga xaqiiqsado inta uu qofku ka yahay qof wax gal ah oo reerkiisa dhaqan kara halkaas maxaan ka fahmaynaa waxaan ka fahmaynaa da'da qaangaarka ayaan ka fahmaynaa da'da qaangaarku marka qur'aanka kuma jirto meel dhahaysa 15 sano lagu qaangaaraa meel dhahaysa kuma jirto 12 baa lagu qaangaaraa meel dhahaysa 9 sano bay gabar ku qaangaartaa kulli kuma jiraan balse taasi waxayba la mid tahay dhaqamadii horay uga jiray wadamadii islaamka ka hor jiray islaamka kadibna adduunka oo dhan ka jiray oo haddadan dhow ay adduunyada kaleeto ay nasakhaday oo baabi'isay oo maxay yihiin aan tusaale u soo qabsado si aan marka tusaale ugu soo qabsado waxa dalka wadamada reer galbeedka oo dhan waxa ay ku dhaqmi jireen waxa la dhaho British criminal ordinance and waa British lawga oo ah markaas article weyn oo ka mid ah ayaa waxa uu ahaa British criminal code ordinance baa la dhahaa kaasaa ka jiray 1936 hadda ahayd waxaa ku qornayd oo sharciga uu ahaa in ay ilmuhu ku qaangaari karo 9 jir wiil iyo gabar wuxuu adoonaha aadee 9 sano marka uu jiro dambigu keenana waa dambigu la yimaadana waa u qoolan yahay xuquuqdii sidii qof weyn baa loo dhaqmayaa guur iyo wax kasta sidaasay ku ahayd hadda marka ay tahay British Criminal Code Ordinance ay haddadan dhow ay ka baabiyeen ka nasakheen qur'aanka ilaahay mar 1500 oo sano iska dheh ayuu nasakhay oo baabiyay oo taas uu tirtiray kadibna laakiin waxa iska jirtay in ay si dhaqamo ah ku sii socotay sidii dhaqamada ahayd baa noo soo xaluulatay marka maxaa u daliila in ay taasi noo soo xaluulatay waxa u daliil ah oo iska cad sida ay culimada islaamku markii horeba ay qaangaarka u kala qaateen oo ay u kala fasirteen qaangaarka iyo marka qofku qaangaarayo iyo gabadha marka la guursanayo iyo waa kulli culimada fiqiga iyo shariicada way isku khilaafeen oo xataa madhabyada dhexdooda haddana isku sii khilaafay laakiin yaa u dhow xaqa oo raajix qowlkoodu raajix yahay kuwaas aan eegaynaa kuwaas marka aan eegno qowlkoodu raajix uu yahay waxa aan tusaale ka soo qaadanaynaa 4 madhab baan sheegnaa Soomaali haddaan nahay 4ta madhabood horta 2 ka mid ihi waxa ay ku tageen oo ay go'aansadeen oo ay taxliilkoodii ku keeneen in qofku uu ku qaangaarayo 19 18 17 ugu yaraan bay ku tageen madhabka Xanafigu waxa uu bilowgiisa markii soo horaba ahaa in qofku wiilku uu ku qaangaarayo 18 jir kadib uu guursan karaa kadib wuxuu dambi gala iyo loo qoolayaa kadib uu xaqiisaas iyo wixii saaweel karaa gabadhuna 17 jir hal sano ka yar tahay bay dhahan ay ka hor dhacaysaa kama ay yara laakiin way ka aqli badan tahay wiilka oo istaasaa la cadeeyay laakiin 17 markay jirto aqligeedu waa kaamil sida wiilkana 18 marka uu jiro aqligiisa oo kaamil u yahay taasay ku tageen haddana madhabka markii ay culimadii si kala badbateen oo la sii taxliiliyay waxa la sii gartay in wiilku uu ku qaangaaro 19 jir gabadhuna 18 jir 18 sano ayaa marka gabadha lagu guursan karaa dambigay gashan u qoolan tahay wax qof weyn loola macaamilayaa marka sidaas ayay tahay marka ka soo qaad 19 18 17 saddexdaas waa madhabka Xanafiga intaas ay ku tageen haddii aad rabtaan marka waxaad ka daalacataan dhammaan kutubta Xanafiyada oo dhan ka fiiriya waa wax iska caadi aan warar ku jirinin dambiga oo qofku galo oo kale ta iyana meelaha looga hadlayo sida marka la fasirayo xadiiska ahaa amdul khada amdu sabiyi kal khada amdu sabiyi qofka sabiga amdiga waxa uu kascad ula yimaado dambiga uu kascad u sameeyo kal khada waxa loo xisaabinayaa khada oo kale oo caaqila waxa la dhaho oo qabiilada jifada ayaa ka bixinaya sidaas ay tahay laakiin dambi looma raacanayo
marka madhabka xanafiga waxaan aragnay halkaas ku dhan yahay kutubta xanafiyada oo dhan u noqda ka eega waxaad eegtaan kutubta almawardi kulligood ka fiiriya waxa kale aad eegtaan marka madhabka aan soo noqono maalikiyada madhabka maalikiga waxa ay taagan yihiin qofku waxa uu ku qaangaari karaa 18 sano 18 sano ayuu qofkaas ku qaangaari karaa marba shardi lagu xiraa waxa la dhahay hadii aynan calaamadaha buluuqu aysan ka soo ifbixinin marka laakiin calaamadahaas buluuqu waa qof shakhsiyan oo qofka dhexdiisa isaga is og yahay laakiin sida la arkayo ila qofka lama fatashayo lama eegayo hoostiisa markaas waxa weeye waxa loo qaadanayaa 18 sano in uu qofkaas qaangaarkiisu yahay sida ku cad marka kutub fara badan oo maalikiyada ah kulli ku cad marka waxaan kuwan ku noqday waxa kamid ah mukhtasarka khaliili uu leeyahay iyo mid kale oo jaliil la dhahay iyo adigu kutubta aad bay fara badan yihiin intaas marka ay tahay laba madhab ayaa waxay taagan yihiin qofku waxa uu ku qaangaaraa ama 19 ama 18 ama 17 marka 18 ka dhexda nooga qabo labadaas madhab weeye laba madhab ayaa waxay marka ku tageen in qofku uu ku qaangaaro 15 jir labada madhabood marka oo ah Shaafici iyo Hanbali waxa ay sidaas ugu tageen maxay daliilsanayaan xadiis bay daliilsanayaan aayad ma daliilsanayaan laakiin xadiiska ay daliilsanayaan aan idin sheego marka xadiiskaasi waxa uu yahay sida tan u qoran yahay waxa ay leeyihiin حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابنة 14 سنة فلم يجزيني فلم يجزيني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني قال النافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ذلك اليوم فحدثته الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا إلى من بلغ 15 سنة marka macnihiisa aan ku noqdo xadiiskan xadiidku waxa uu leeyahay waxa noo sheekeeyay Abdullah ibn Sa'id waxa uu noo sheekeeyay hadana oo asagana kasoo sheekeeyay oo u soo sheekeeyay Abu Usama waxa uu yiri waxa uu u sheegay Abdullah markaas hadana waxa uu sheegay Abdullah intaas ku joogsaday hadana waxa uu yiri waxa uu sheegay Naafi markaas hadana waxa uu yiri waxa uu sheegay marka uu leeyahay Ibn Umar macnihiisu waa kuwa la isku soo sheegay marka waa kasoo warin waxa uu yiri anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam in rasuulka ilaahay marka urido in loo bandhigay isaga wiilka waa loo geeyay yawm Uhud waa wiilka yar macnaha loo geeyay yar dagaalka ha galo isaga oo 14 jir ah soo marka iima fasaxin buu jiray thumma marka waxa hadana ka bacdi waa thumma aradani waxa kale iyadana yawm al-khandaq markii la joogay ba hadana loo soo bandhigay wiilkan isagii baa u tagay loo soo bandhigay wuxuu rabay dagaalka inuu galo markaas waxaan jiray yiri 15 jir baan ahaa markaas wuxuu leeyahay Naafic waxa uu yiri markaas uu ii ogolaaday uu yiri 15 markaan jiray marka dagaalkii waa la ii ogolaaday uu jiray marka waxa uu yiri waxa aan u soo bandhigay Umar bin Abdul Aziz oo marka khaliifka ahaa ayaan xadathtu xadiiskan uga sheekeeyay marka waxa weeye Umar bin Abdul Aziz waxa weeye waa kooxdii umawiyiinta la oran jiray ee 100 sano xukumayay marka muslimiinta oo xukunka la wareegay 30 sano markii nabiga nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee mootana oo ahaa kuwa macnihii dhibka ay geysteen ilaahay og yahay ummadda wax akhrisayn ay og tahay ninka ugu fiicnaa ee la isku raacay ee khaliifka rasmiga ah muslimiinta ahaa waxa waa Umar bin Abdul Aziz
kaas baa marka loo geeyay laakiin marka xadiidka markaas uu maqlo loo sheegay markii saa loogu sheegay oo soo khaliifka xadiidka hadda u kowtahay haddana markaas markiiba waxa uu diray uu jiray wuxuu u qoray cumaali shaqaalihiisii shaqaalaha marka shaqaalaha warshad ka shaqeynaya cumaal waxa la dhahaa shaqaalaha xoogsatada ah marka ka wadaa maartay shaqaalahaas ayaas in ay shaqaalaysiin karaan kaliya qofka 15 gaaray waxa uu yiri inay farad yeelaan in liman balaqa 15 sana qofka gaaray inuu yahay qofka qaangaarka asaas uu qoray intaas marka uu saa ugu qoray marka maxaan ka fahmi karnaa xadiidka horta sida xadiisyada dhan ah waa xadathani marka iyo xadathana iyo intaas weeye laakiin hadda ujeedadu waxay tahay waa uu u sheegay meel kale oo laga hubsaday hadda halka nooguma qorna wiilkan markuu warka u sheegay oo sida uu sheegay asagoo horu ka fuliyay uu u qoray marka daliil ilaahay soo dejiyay miyaa tano mise waa daliil kale aan inta isla eegno madhabka shaaficiga iyo madhabka marka xambaliga waxa ay ayagu aad xoog u saaraan waxa la dhaho xadiis iyo sunno iyo arrimahaas xoog ka saaraan iyo athar iyo maxay tahay dhaqankii magaalada iyo wax arrimahaas ayagu xoog ka saaraan oo aatharta ah laakiin madhabka xanafigu waxa uu ahaa madhabka xoog ka saarayay quraanka oo mar walba madhabkaas waxa uu daliishis ahayd quraanka oo si fiican ugu dhaganaa marka baryahan dambe qofkii dhaha quraanka aan daliilsado quraani baa loo bixinayaa qofkii dhaha war cilmiga wax lagu fasirana cilmiyaani baa loo bixinayaa nimanka ay dadka haddan dawladda ay u dhaaranayaan waxa ku jiray cilmaani marka ayaguna culumay sheegtaan culum macnaheedu maxay tahay waa cilmi bay ka timid marka cilmaanina waa qof cilmi leh la cilmaani haddaa tahay hadda culumo ma noqon kartid marka taa aan isla garano intaas waxa weeyaan marka ilaahay quraankiisana aayadaas noogu sheegay in aan qofka tijaabino in uu gaaray qaangaarka laga bilaabo 15 ilaa 18 intaas inay ku socoto waxa kale oo jirta madhabiye qaarkood ama culimo badan oo ku doodaya ama xujidoodu ay tahay in qofku uu ku qaangaaro 24 iyo 25 taasina haddana waxay waafaqsan tahay sharciyo reer galbeedka ay leeyihiin oo dalka Canada oo kaleeto waxa qofka youth oo waxa loo arkaa hoose oo wax ma garata camal ah oo 24 sano ka gaaro oo wasaaradda caruurta iyo dhalinyarta sidaas ayay ugu qoran tahay marka ilaahayna quraankiisa waxa uu ku yiri wa idha balagha al-adfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu marka haddii ay caruurtu gaaraan xulumka halkaas baa marka kelmadda xulum ay iyaguna ka soo qaateen madhabka shaafici iyo hanbali xulumkaas inay tahay qofku in uu isku junuubo wiilkii isagoo hurta gabadha inay xayd hesho arrimahaas ay ka soo qaateen marka laakiin taas macnaheedu ilaahay aayaddan wuxuu ku leeyahay wa idaa balagha al-adfaal caruurta hadday gaaraan ma dhihin qof qaangaar oo wax gal ah ma dhihin caruurba horta ilaahay ka hadlayay waxa laga hadlayana maxay tahay waa albaabka aabaha iyo hooyadu markay qolka iskula jiraan albaabkooda ku jiraan caruurtu hadday marba ay xulum gaareen oo wax ka yimaadaan albaabka soo gargaraaceen oo idan idinka qaateen yeesan dalqis ka soo dhihin waa intaasay arrintu tahay laakiin ma aha guur iyo arrimo kale maba laga hadlaynba in ayaga la guursan karo iyo inay wax guursan karaan taa lagama hadlayn waxaa laga hadlayay idan soo qaadashada guriga ay ku soo galayaan marka daliil uma noqon karto madhabyadaas sidaas ku tagay oo arrintaas macnaha ku adkaystay madhabka waxa kale oo jirta marka madaahibahaas maadaama ay sidaas arrimahaas ugu tageen madhabka maaliki iyo xanafi waxa ay tahay waxaan culimada weydiinayaa maanta Soomaaliya madhabkee bay ku dhagan tahay oo haysta ognahay in meel walba lala taagan yahay annagoo shaafici ah annagoo shaaficiyiin ah laakiin shaaficiyiin aan xaqiiqada runta isu sheegno idinkuna ogtiin annagoo ogahay ummadda dhan oo ogtahay ilaahayna wuu og yahay shaaficinimo goorma ugu dambeysay Soomaaliya taas ka jawaaba dhammaan inta salafi sheegata hadday tahay salafiya jihaadiya salafiya qadiima salafiya jadiida salafiya al-i'tisam al-shabab al-hiblay al-takfir التكفير والهجرة التكفير والتبليغ ان هدي تاي حتى تبليغ ان دمانتود كواس
tabliiqu waxay u dhow yihiin xanafi laakiin intaasoo dhan waxay haystaan xambaliyiin waa xambaliyiin weeye intaasoo dhan soomaaliyana yaa u badan maanta ayaga ayaa ka badan kuwii hore oo ahlu sunna wal jamaaca markaan dambe la baxay oo marka hore suufiye la oran jiray kuwaas ayagaa maanta ka badan marka aan xaqiiqo u hadalno kow ha ka badnaadeene ama ha kala fiirsadaan dadka waxay u kala badan yihiin horta dad dhexda ku jira oo aan waxyaalahaas raacsanayn waayo waxaas ilaahayba kuma qasbinin ilaahay nama dhihinin shaafici noqdo iyo xanbali noqdo iyo xanafi noqdo toona nama dhihinin ilaahay muslim noqdo nagu yiri laakiin haddii aan marka iska faalalayno oo wax kale iska galayno waa arrin kaleeta tii laftigeedu yaa ku jira maanta marka inta xanbali firkiisa ku abtirsanaysa oo xanbaliyiin ah iyo inta shaaficiyiin ah aan isu barbar dhigno kow aan la barbar dhigno inta aan midna raacsanayn oo dhexda ka ah intaas marka Soomaaliya loo qaybiyo kuwa shaafici inta ah magacii hore aan xagga dhigno laakiin hadda waxa jooga aan ka hadalno waxay noqonayaan aqaliye noqonayaan taas waa mid marka halka marka ay tahay waxa jirta oo kale marka in arintu marka heerka marayso maxaa loo baahan yahay in la sameeyo waxa loo baahan yahay bulshada in la eego kow waxaan ogahay culimada sidaan ku dooday horta waa culimadii aniga waxay soo baray nasiibka maanta waxa taagan waxay tahay sheekh Baaruud tafsiir baan ka raacan jiray ninka la yiraahdo sheekh Cali Wajiis waa sheekhayga ilaa haddeer aan si fiican isla xiriirno on maxaynaas aan ulya deernahay waa sheekhayga si fiican aan dhigi karo aan wax badan ka soo bartay sheekhaas isaga marka maanta ma aan macnaheedu cimri baa socda adduunku waa ka iska daba cararaya wiilka aad dhashay wiilkii uu dhalay ayaa horta kuwaanin kara oo ku sheegi kara kow maanta waa in la xaqiiqsada taas ardayda wax soo bartay baa kun jeer kaasi badan kara iyo kuway sii bareen baa kaasi badan kara waa inta la ogaadaa horta xaqiiqada in la iska dhaadhiciyo wax kale lama rabo laakiin in runta laga abaaro sidaas baa muhiim ah waa midda kale waxaan ogahay culimada iyaga ah kama ahan wax kale kama ahan xataa difaac u malayn maayo inay ka tahay waxay ka tahay shacabka inay raali geliyaan in ay shacabku sida ay rabaan oo ay ku socdaan in shacabka loo raaco war hadda walaalayaalow aan isweydiina shacabka haddii ayaga aan hoggaan ka sugayno maxaan u hoggaaminayna haddaan culimo sheegano macnaha haddaan culimadii baa tihiin majmacul culamaa almuslimiin baa tihiin idinkaa marka indho u ah ummadda haddaba qof indhoola ihi miyuu qof indho leh hoggaamin karaa waa kow aan si kale u iraahdo iyo hadalkaas iga qaloocanina qof haddii aad u socotay magaalada afgooya aad u socotay aad jamaama u socotay ood xamar ka baxayso qof jamaama jidka loo maray yaqaana miyaa kooxda hagaya mase qof aan weligiis ka arag oo gaalkacyo salkiisa ka yimid baa hagaya aan isweydiinaa mase qofkan marba jiha kula aadaya waa in la ogaadaa qofkeebaa hagaya ummadda waa qofka wixii yaqaanay qof walba marka waxa uu yaqaano ayay tahay in loo soo qadimo oo uu ku dhaqaaqo oo uu dadka u sheego oo haddana looga dambeeyo laakiin xoogsi iyo garabootan iyo anaa dad kacsanaya ma ahan waa ogahay culimada waxa ay ku fakerayaan shacabkan matelnaa shacabkuna waa wada shaaficiyiin waa halkii hore uga dhegan tahay hadde marka shacabku sida ay rabaan oo dhaqankoodii ahayd baan ugu wadaynaa dhaqankii wixii xumaa waa xumaayeen waa inaan runta isu sheegnaa maxaa adduunka loo joogaa maxaa hoggaan loo yahay maxaa culimo loo yahay haddii aan dhaqanka xun laga hortegaynin oo la burburinaynin oon dhaqanka fiicanna la hormarinaynin marka shacabkii baa sidaas raba oo aan ku raacayaa arrinteedu ma ahan wax dow ah ma ahan wax qof oon lagu kalsoonaan karana ma ahan marka hal yastawi al-a'ma wal basir ayuu ilaahay leeyahay wala dhulumat wala al-harur wala yastawi al-ahya wala al-amwat waxa way qofka wax hagaya waa inuu yahay qofka wixii hagidii yaqaana ma ahan in qof kastaba oo dulmi iyo faraha la soo galo arrinta ma ahan waa midaas waanadaas aan leeyahay waanada kale waxaad ogaataan culimada majmacul culamaa oo Soomaal ka kooban waa isnaqaane kooxdee baa tihiin maanta sidii hore lama ahan
boqol koox baa jirta ama ku farax ama ka xanaaq runta cad waa midaas waxa Soomaaliya ay u qaybsan tahay boqol iyo ka badan firqa diineedyo ay u qaybsan tahay marka idinku kooxdee matashaan weeye haddii aad koox ama laba kooxood matalaysaan meeye dadkii kaleeto waddanka qaanuunkiisu muxuu yahay waa in uu yahay qofka Soomaali midda kaleeto waddanka ma la isla leeyahay mise waa la kala leeyahay laba wada dhalatay hadduu midna muslim yahay midna gaal yahay waddankii ma wada yeelanaya kow laba wada dhalatay hadduu midna shaafici yahay midna xambali yahay waddankii ma wada yeelanaya haddii uu midna takfiir yahay midna wax kaleeto yahay islaax yahay ma wada yeelanaya waa in arrintaas aan u fiirsanaa waddanku ma ahan caqiida iyo waddan aan kala saarno waddanku waa shirkadaas weyn oo la isla leeyahay qofku waxa uu aaminsan yahayna waa wax qalbigiisa ku jira oo qalbigiisa qof inta u dhaco kama soo dhex saari karayo marka waa inaan taas ogaanaa sidaas marka ay tahay aan idin weydiiyo culimada majmac culamaa muslimiin ay horta majmaca looma dhama markii Embagaadi aan joogay 2004 oo madaxweynaha Soomaaliya u tartamayay waxa aan maalin walba meesha horteeda tabeella soo dhigan jiray koox dhahaysa shirkaas looma dhama qabiil hebel baa ka dhiman qoys hebel baa ka dhiman bay gaartay markii dambe marka maanta oo la joogo aan dhaho marka culimada majmacul culamaa Soomaal looma dhama oo seeban loogu dhamayn waxaan leeyahay kuma jiraan dhammaan inta xarakaadka ku jirta hatta marka ay noqoto ahlus sunna wal jamaa waa qaadiriye kaliyan oo jeedna away ahmadiya away sayliya away kuwa la dhaho saalixiya away kuwi kaleeto waxaasoo dhameeya waa xagga qaadiriye duruq dariiqooyinka marka loo dariiqooyinka boqol dariiqay ahaayeen meeye hal midaan ka aragnaa kow salafiyinnimo markaan dhahno waxaa jira labada mataanaha ee al-i'tisaam iyo al-shabaab iyo al-i'tisaam oo garabka hubaysan iyo garabka aan hubaysnayn laakiin isku mid ah labaduba si toos uguma jiraan laakiin waxa aad u khatar ah in ay al-i'tisaam oo si maaragtay aqli rabo inay dawlad ku noqdaan ay u soo xaluushaan majmacul culamaa Soomaali ay soo dhex galaan oo ay member ka noqdaan oo iska dhex taagaan oo wax ka noqdaan arrintaasna majmacul culamaa Soomaali aad bay ku tahay waayo waxa weeye al-shabaab saar oo al-i'tisaam keen eedeeda adinka iska leh waana isku mid waad ogtihiin markay halkaas tahay waxa kaleeto oo jirta meeye yaa haddii loo dhan yahay away asaadicun bil haqq away takfir noocyadiisa kala oo fara badan away tabliiq away islaax away hebelow away intii oo dhan away quraaniyiin away hadaa rabtaan aqlaani iyo cilmaani dhaha dadka wax garadka oo dhan macnaheedu wax ma garanayno aan baaba'no oo cilmi iyo aqli ka tagno oo quraan ka tagno hadaa tiraadeen xataa kuwa inta leh laftigoodu wadanka xoog bay ku leeyihiin gudaha iyo dabadda bay joogaan waa dad tirsama xaqooday leeyihiin ayaga laftigoodu mee xaqoodii marka waa la idinka aamusan yahay laakiin hana faarfaarinina oo hana sii faragelinina waxaad yeelaysaan walaalayaalow waa idin baryayaa ha ku noqonina dawladdii soo kacdaba laf dhoon gashay oo soo taagan oo baarlamaankii kasta iyuusan idinka shaqo geli waayin oo sharci sidee loo dejinaya sidee waddan loo gaarayaa maaragtay wax tara oo wax socdo oo nidaam ka socdo haddii qodob yar oo soo baxaba aad liq isku taagaysaan idinkoon waxba ka fiirsan oo meel kale iska daaya laydin lama gaarin ilbaxnimo in looga hadlo qodobkaas laydin lama gaarin qaanuunka adduunka laydin lama gaarin qaanuunka gobolka laydin lama gaarin waxaas oo dhan laakiin laydin lama gaarin duruufta iyo waxyaalaha isbedelay laakiin waxa ay tahay in kaliya shareecadii laydin kula noqdo ayaad ku banjarmaysaan oo shareecadii laftigeedii aadna aqoon oona soo heli karo in culamo xataa shaafici ka mid ah ay qabaan in uu yahay qaangaarku 18 marka intaas oo dhan marka aan ka soo harno taa macnaheedu marka yaanan ka dhigin in aan dhaho qaangaarku markasta waa 18 aayadda ilaahay waxa uu nagu yiri wabtul yatama hatta idha balagun nikah imtixaan waxa qofka waxa la rabaa marka uu gaaro
12 13 14 intaba bar lagu wado Britain baa la dhahaa Britain age marka oo 15 16 gaarana teenager baa la dhahaa marka kadib adolescent baa la dhahaa marka kadib youth baa la dhahaa marka kadib waxa la dhahaa middle age sidaas ku socda marka si middle age ka loo gaarsiiyo qofku waa inuu ku socdaa mar walbaba la siinayo tababar ku salaysan xilliga uu markaas da'diisu tahay si taa loo helo aayadaas u daliila aayadda 6 ee suuratu nisaa baa u daliila markaas imtixaan iyo tababarid imtixaan goormaad qaadaysaa waa inaad marka hore soo tababartay oo qofka wax soo tustusay markaas sidaas aad ku wadwadeed waxaa dhici karta qofkii in uu 18 qaangaarku ugu buuxsamo inuu ka hor ugu buuxsamo iyo inuu kadib ugu buuxsamo intaas oo dhan baa dhici kartaba marka ay intaas tahay oo sidaas ay ku socoto yaan lala yaabin marka adduunyada waxa ka jira waa wax dhab ah oo la soo tijaabiyay xilliyada ayaa isbedela dhaqanka isbedela qaab nololeedka isbedela dhaqan dhaqaalaha isbedela waxaas oo dhan oo isbedelaya ayaa qofka da'diisana la xiriiri kara aan tusaale idin kugu soo qabto Sheekh Ali Wajiis khayr Allah isku siiyo waa isnaqaanaa in ardaygaagi ahay masjidka Hurwa waa Dr. Qaasim Xirsi isaga anoo marka u sii jeerinaya markii anigu aan ardaygiisa ahaa oo qiyaas karaa intaan ahaa iyo intii aan samayn jiray 15 jir shaqaale dawladeed baan ku noqday maxay tahay 16 jir jaamacad baan ku galay marka aan jiray 18 marka aan jiray waa iga marxaate Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi iyo ragga uu leeyahay aniga iyo qolban ku wada xirnayn siyaasad baan u xirnaa marka ay intaas tahay marka da'daas waagaas dadkaas joogay sidaasay da'dooda wax ay uga mara dhalin kareen oo ay u ahaayeen oo wax garadkoodu ahaa laakiin maanta oo la joogo waxyaalaha qalabyada cusub oo yimid ha ahaato qaab nololeedka isbedelay ha ahaato waxyaalo kale oo badan ha ahaato dadkii hore ma ahan sidii horena uma dhaqmi karaan waxyaalo badan baana hortaagan waxa ugu weyn oo hortaaganna waxa ay tahay culummo iyo caamo dawladdii timaadaba laf dhuun gashay ku ah liq ku ah marka dawlad la'aantii nagu dhacday awgeed baa dadkanagu dib u dhaceen da'dooduna dib u dhacday waa inaan taas garowsanaa dadkeena da'doodu marka dib bay u dhacday dawladnimo la'aantii ay nagu kalifeen culum wadaad xumayaashu awgeed waxa aad marka wax laga xumaada ah xataa in waxa jirtay maalin dhexe waxaan daawanayay maamo Maryam oo ahayd Maxamed Siyaad Barre markii uu dhahay rag iyo dumar waa simayeen qofta dumarka u qaabilsan oo garabkiisa taagneed oo iyadu ka shaqeynaysa saan garabkiisa u taagnaa bay leedahay habeenka uu khudbeynayay markaasaan mar walba waxa is celin waaya waxaan ka baqaa intaan habsi iyo inaan iska dhundhunkado sida uu hadaladiisa wanaag ka soo baxaya saasaan ahaa bay leedahay haddana waxaan aaminsanahay tir wax dhib oo nagu dhacay maba jiraba waxay ahayd wadaadada la toogtay kaliya waxa weeyaan maanta waxaan la baaba'anay ilaahay nala cadaabayo waa intaas marka markee bay saxsan tahay maalintaa hore ay dhalinyarta ahayd bay saxsan tahay mise maanta ay saxsan tahay waa inay qur'aanka u noqotaa oo ilaahay rag iyo dumar inta wada abuuray ma dhihin raggoo adinkaa ka sarreeya dumarka meel uu ilaahay ku yiri ma jirto adinkaa dulmigaa samaystay dadow marka aan ka soo tagno arrinkaas waxa weeye maalinta ayaantaas waxaa dhacday dhib ahaa sidii uu Maxamed Siyaad Barre markuu khudbeeyay uu ku yiri war anigu culummo ma layna culummadii wakwaasa hebel iyo kulli wada sheegay maxay tahay waxa aan ilaayay wiilal si u sarqaansan marka sarqaanku muxuu noqon karaa sarqaanku khamri lacabo ma ahan sarqaanku wuxuu noqon karaa waxa qofka inta al-shabaab hadda waa sarqaansan yihiin intaas tusaale idina qofka al-shabaabka miyir male waa sarqaansan yahay marka sarqaankaas isaga waxa iga sheekeeyay raggii ka soo badbaaday dilkaas iyo xabsigaas iyo ka soo dhameystay waan sheekaysanay raggii baa ila ku dhaaranay wallahi maalinkaas inaan nafiyoobeen waa sarqaansanayn leh maantay ha kalifina nimankiina waaweyn ee culummada markaas magaca culummada qaaday in aad sababtaan in ummadda ilaahay ay maanta dhib iyo rafaad galaan ayaga oo 30 sano cadaab ku jiray maanta in haddana cadaabkii mar si laba kacleeyaa ku kalifinana iska daaya sharciyad waaweyn haddaad wax qodobo haddaad heshaan waaweyn oo si toos ah diinta uga soo horjeeda markaas ha qabsada laakiin hadda lama dhibaato ma jirto qodobadan la qorayna qof walba xataa Soomaali qodobo ku dhaqantaaba iska yar qof walba isaga baadiyiisa isaga gurgursanaya
wixii la soo bandhigo oo sharciyan u yimaado baa laga hadlayaa taas marka halkaas aan uga baxayaa waxaan kaloo rabaa iska dheeraado maanta clipkan in aan ku daro qodob kaloo ay ku dareen oo ah waxay dhaheen nin haddii uu gabadhiisa yar oo dhalay ama wiilkiisa yar oo dhalay ilaahow ama 2 jir ama 2 bilood jir ama 20 jir haddii uu kufsado oo xoogo lagama qaadi karo ilmaha yar bal aqliga intaa leeg ilaahay baa in ku dhaarshay dadow manin culimo ummadda hogaaminaysa abu ka soo yeeri karaa manin hogaamiyadadeeda buu ka soo yeeri karaa manin damiir dadnimo leh buu ka soo yeeri karaa manin jaanjac ummadeed leh buu ka soo yeeri karaa arruurta haddii kan kufsanaya oo baabi'inaya oo burburinaya aan laga qaadinin ama ha dhalama yuusan dhalinin maxay tahay marka meesha loo wado ma lagu fiirsanayaa qofkaas carruur laga qaado maahane dembi ka weyn buu leeyahay oo dembigaas marka waaba gooni laakiin in ilmihii laga badbaadiyo oo laga qaado weeye ma la isla baabi'inayaa cunugaas yar inuu sidaas u waasho miyaad rabtaan oo tusaale aan kugu siiyo ummadda meeqaa haddeer aad maqlaysaan social media keliya ama hooyo weyn ha ahaata oo dhahaysa yaraantii baa lagu kufsaday oo gocanaysa haddeer hadday rabto konton kadib soo gocanaysa ama ilmo la waashay goorbaad arkaysaan meeqaad aragteen ama meeqaad kaleeto arkaysaan macnaa qof si kala noqotay oo dhahaysa waa la itaataabtay keliya marka ay intaas tahay ilmo saqiira oo waxaa lagu sameeyey maxaad ka filanaysaa noloshee ka filanaysaa ninkaas isaga haddii aan laga badbaadin oo laga qaadin marka ilmahana hala baabi'iyo miyaa caqligeedu waa midda caqliga keliya marka aan fiirino midda diinta aan usoo noqono midda diinta waxaa waajib ah qofka iska dhaaf ilmihiisa uu kufsaday ilmihiisa hadduu gaajo u dilo in laga qaado hadduu faasiq yahay oo alkoolista yahay in laga qaado hadduu xataa jaadcun iyo salaad ma tukada iyo yahay in laga qaado waxaas oo dhanba waaba shareecada oo maxay u tahay shareecada u noqo masalan waxaad soo akhrisaa kitaabka la yidhaha al-insaaf fi macrifati raajix min alkhilaaf lilmardawi calauddin kitaabkaas markaad akhriso wax badan baa ka arkaysaa oo sidaas u ah oo ku qoran oo shuruudaha qofka waalidka looga qaadi karo ilmihiisa ay ugu horeysa masalan haddii uu waalidkii addoonsi galo la addoonsado haddii uu faasiq noqdaa lambar 2 ah yaal suuq noqdo faasiq ka daran muxuu yahay ilmihiisa inuu kufsado marka waxaa kaloo uu ku jirta marka inability inuu yeesho qof ilmihii dhaq oo uu korsan waayo ayana in laga qaado weeye waana intaasba inta reer galbeedka ka jirtaa intaa marka hadday reer galbeedka marka way ka timid awgeed loo colaadinayo hadda waa shareecadii bay ku qoran tahay marka anagu shareecada ma dhaqan gelinayno laakiin ayagu waxooda waa dhaqan geliyaan marka ayaga colad saaraynaa shareecadii la samaystana mataasaa loo nacayaa marka shareecadii markaas culimmadii soo dedejiyaan oo la sameeyey marka taas xataa waxaan tusaale usoo qaadanayaa ibnulqayim aljawzi waxa uu isweydiin jiray oo mas'alo laga dooda ahayd ilmaha waddanka muslimka ah jooga ma waalidkaa ilmahaas leh mase dowladdaa leh baa laga doodi jiray waa mas'alo ilaa hadda lagaga doodo dalka canadaba oo ilmuhu liberaalka iyo conservativeka ay isku murmaan ilmuhu inay yihiin property ay dowladdu hanti ay leedahay oo kaleeto loogu xisaabtamo markaas waxay ahayd ibnulqayim aljawzi sida uu ku doodayay bay ahayd waxa iskhilkhilaafsan iyo waxa isbalaayaa meeshan ma yaalaan waxa dhan waa wax sahlan weeyaan marka arrintaasaa laga doodaya kitaabka alhadyi la dhaho ka eega marka waxaa kulli marka lagu gabangabayn jiray markasta inay tahay in la isla leeyahay oo ay tahay dowladda iyo waalidku labaduba ay isla leeyihiin marka ay sidaas u tahay gabadha oo kaleeto markaas in ay dowladdu ay marka guurkeeda iyo waxeeda iyo la soconayso oo tusaale xadiis ma marka daliil u ah xadiiskan waxa uu yahay fa in istajarra waliyuha fa suldaanu man laa waliya laha haddii uu dhuunto ama la qarsoomo ama la arki waayo weligii gabadhan waalidkeedii alla waayo fa suldaanu waliyun man laa waliya laha suldaanka ayaa weli u ah ciddii aan weli lahayn marka ciddii weligeeda uu xun yahayna dowladda ayaa suldaankaas ayaa u ah weli u ah oo ayaga ayaa xukumaya ayagaa sidaas ku haysta halkaasay tahay marka waxa aan hadalku ku dhan yahay culammada majmacul culamaa Soomaal waa la baxdeen hanti baad midhaan ku heshaan
hoteelada la idinku hayaa wadan shaqaalihii dawladda mushaar loo laayahay baa hoteelkeena la idinka bixinayaa waa arrintaasna waxa weeyaan aakhiro u fakara inay xalaal idin tahay iyo inay xaraam idin tahay bal ka fakara taas kow waa dadkii shaqaynayay iyo askarigii waardiyaha iyo shaqaalihii baa mushaarkooda ciriiri ku jira iyo tuugsan adinkana hotel baa la idinka bixinayaa xagee keenteen cuntaa la idin siinayaa waa horta bal waxaad cunaysaan ka fakara intaadnaan umad kaleeto aadnan fadna la gelinin waa labo in aad culumadii ahaataan oo tiraan shacabkaan matalaynaa oo shacabkii aad u hadashaan oo haddana shacabka u hadlaysaan waa shacab jiray 1950kii kadib ma haysaan marka shacabkaas isaga aad u hadlaysaan laftigiisa idinku dhexdina ammaan ma ku heli kartaan dhexdooda hadda shalaydaanay ahayd markii gudoomiyaha majmacul culamaa oo Soomaal gaarigiisa bamba loo geliyay oo ku qarxi gaartay haddeer ahayd gaariyaalkiinii baa bamba la gelinayaa heerkaasaa taagantihiin in adinkii marka waardiyihiinii la bixiyo la idin kontrolo la idin ilaaliyo aadna tiraadaan dad baan ka mas'uulnahay horta isma keento isma qabato inaad dadka xaaraan iska ilaaliya dhaadaan idinna xoolo dawladeed oo aad sabab aad ku shaqaysateen aanay jirin aad cuntaanna hadda isma qabatay ogaada garta aan kala qaadano haddana in aad tiraadaan Soomaali baan matalaynaa adinka oo ka kooban hal xarako hadda isma qabatay ogaada wadanka kontameeyo xarakaa ka jirta mid walbana aqligeeday qabtaa maalinkay aarsan kartay aarsanaysaa ciil baa qaar la kala go'an yihiin haye marka ma dhigi kartid sida hadda aad dahayseen ku celcelinaysaan oo ahaa ka yeeli mayno cilmaaniyiin ka yeeli mayno sheekh ka yeeli mayno or who are you in the first place adig maxaa tahay marka dahaysid ana maxaa tahay wax walba ka yeeli mayno horta yaa ku marka ugu horeysa yaa authority ku siiyay xagee laga caleema saaray dawladda ku soo dooratay yaa dadweynaha ku soo doortay yaa jagadan ku siiyay horta aad la qabqableedin ko horta jaga dawladnimada ku qoran ma ahan majmacul culamaa Soomaal kuma qorna dastuurka dawliga ah waa midda kaleeto shacab inta in soo doortay meel idin keensaday ma jiro midda kale cid inta in soo imtixaantay aad diinta ugu badisaan dadka Soomaalida ah oo idin qirtay ma jirto waa midda kale inaad dadka ugu akhyaarsantiin ugu caqli badantiin cid idin xaqiijisay ma jirto waa midda kaleeto in hadiiba xataa meesha aad soo ciriirsateen oo timaadeen saa ku timaadeenba aad hesheenba dawlad aad iska maashaan oo lacag idin ka bixiso oo idin masruufto oo meel idin ku haysataa hesheen ogaada waxa aad cunaysaan waa inaad ka fiirsataan xalaalnimadooda iyo xaaraannimadooda ha noqonina sida kuwa milyanada daaraha ka jeexda oo dhulka islaameed oo dhan inta goosta dhahaya anaa iska leh 25 hektar kaliya maxay tahay dhahaya halkaas aan gelinina xiriirada aad isla leedihiin hadda ummadda kama qarsoona waa inaad isogaataan oo alihiina idin abuurtay aad ka dhowrsataan xumaanaha aad ku dhaqmaysaan waa nimanka culimada sheegta ee dhahaya baarlamaan baan ku jihaadaynaa iyo ku mudaaharaadaynaa iyo ku dagaalamaynaa wax oo shariica la baabiyay dhahaya shariicadu miyaynan ahayn midaas Xanafi iyo Maaliki ay leeyihiin waxa lagu qaan gaaraa 17 18 19 oo mid ugu yar qowlka ugu yar yahay 17 gabadhu inay ku qaan gaarto 19 la taagan yahay kuwaas miyaynan shariica ahayn marka meesha madhabyadii Xanafi waa taan sheegay hataa Shaafici ahaan jirnay bari horaan ahayn laakiin maanta ma nihin ma wadanihin qaar baa Shaafici qaar baa Xanbaliyiin ama ha sheegteen ama ha qarsadeen qaar baa Xanafiyiin qaar baa Quraaniyiin qaar baa Sunniyiin kala qaar baa hataa Shiica qaar baa wax walba waana wadankan waa la wada leeyahay dad muslimiin la wada sheegtay Ilaahay baana og maalinta qiyaamaha sida uu kala xukminayo intaas ay ku dhantahay marka yaanan ku fogaanin culimadii waxay soo bartay khayr Allah insiyo laakiin tusaale aan u soo qabto waxaas la hadlayaa marka dawladda iyo dad kale oo arrimahaas baarlamaanka iyo ku xaqle arrintan waxay ka mid tahay takhasusyadayda aan ku sameeyay shahaadooyin sare buuggaas waxaan ka qoray ciwaanka saxalda juvenile delinquency in Islamic law and a comparative study with the Western legal system وبوغاس waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda International Islamic University of Malaysia October 1997 marka buuggaas waxaan ka qoray markaas qofka qaangaarkiisa iyo waan qoray marka aan juvenile delinquency ka hadlayay carruurta macnaha inxiraaf shabaab af carabi la dhaho taas halkaas ka tahay kan
waxa weeyaan waxaa la dhahaa AJIS waa Australian Journal of Islamic Studies waxa uu soo baxay bisha December 2008 waxa weeyaan volume soo baxay kaas isaga marka waqtigaas soo baxay waana waxa aan ka qoray waa book review markasta journal of review weeyaan marka waxaan ku qoray article kan waxay tahay macnaha book chapter baa la dhahaa book chapterka halkaas ciwaankaas baan waagaas ku qoray oo ah waxaa la dhahaa the concept of underage and legal liability in Islamic law waa ujeedaan Qaasim Xirsi Faarax sidaas ayaan book aan halkaas kaga qoray oo arrimahan dhan oo nagu faahfaahiyay bookgaas kaleeto ayaa isagana ka qoray oo la yiraahdo juvenile delinquency from Islamic perspective and causes crisis and solutions and suggestions waxaas oo dhan marka ayaa ka mid ah waxyaalaha aan ka qoray arrinkan sidaas darteed waxaan gabagabadeeduna ahayd oo ku soo aruuriyay in adduunka oo dhan muslim iyo gaalba samankan la joogo qaangaarku uu yahay 18 iyada oo la eegayo marxaladda dadku ay ku jiraan qaab nololeedka iyo waxyaalaha sababaya waxyaalahaas oo dhan la eegayo marka waan ka xumahay salaadii duhur baa iga sii fogaanaysaa marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo kulanti dambe oo xiiso leh